شفاء لروحي وحبل المتين. بولشوي بشارو warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaar ah lagu daweeyo ilan xaaji xasadkaygi baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex daraye haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni Al-Hilaal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kili xanuunka massage toobin waafaqsan sunnada allergiga gast Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta oo dunida aad ka joogtaanba dhammaan asxaabta Al-Hilaal Herbal iyo barnaamijyadeeda la socoto meel kasta oo dunida aad ka joogtaanba waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo cumri dheer iyo cibaado san barnaamijkan idin la wadaagaya maanta wuxuu ku saabsan yahay waa barnaamij musalsal ah oo socon doono inta muddo ah kuna saabsan daawada dhirta iyo qaybaheeda kala gedisan faa'iidadooda iyo faa'iido daridooda geedka ugu horeeya oo soo qabanayno maanta waxa weeye geed caan ah oo wada taqaanaan oo la yiraahdo qustul hind muxuu daawo ka yahay muxuu daaweeyaa seel isugu daaweeyaa seese cudur loo qaadaa ayada lafteeda daawada lafteeda cudur ma laga qaadi karaa liana maxaa yeelay geedkaasi aad baa loo isticmaalaa khaasatan ummadda muslimiinta aad bay u isticmaalaan maadaama nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ka sugnaaday in uu عليه وسلم حديث صحيح البخاري كسبان ونوغو sheegay inuu daawo yahay balse wax kasto daawo ah markii aad u isticmaasho si qalad ah ama lagu siiyo si khalad ah maxaa ka dhalan kara barnaamijkeenu waa barnaamij noocaas ku saabsan ma ahan in aan idin soo gudbiyo oo kaliya faa'iidooyinka geedaha ay leeyihiin qofka hadii uu rabo barnaamij inuu ummad la wadaago shaygan ummadda la wadaagayo waa inuu u sheego faa'iidadiisa iyo faa'iido daridiisa qaabka loo isticmaalayo iyo qaabka loo isticmaali karin dhibaatada uu keeni karo hadii sida loo isticmaalo runtii waa cashiro mutawaatir ah oo socon doona haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka raali noqdo geedka maanta topigeenu ku saabsan yahay waxa la yiraahdaa qustul hind magacyo badan buu leeyahay qustul bahrina waa jira oo amid yarcad kalarka ku kala bedelan yihiin iyo xagga dhadhanka iyo shiirka geedkaas marka wuxuu ka baxaa meelo badan oo caalamka kamid ah Soomaalidu waxay yiraahdaan ayagu oboora u yaqaanaan oo magac kale u yaqaanaan balse wadamada inta badan muslimiinta caalamka ayaa geedkani waxay ka sameeyaan daawooyin fara badan kambaniyo ay sameysteen oo daawooyinkaas ay ku soo saaraan geedka laftiisa hadaba geedka marka asal ahaan geedkani waxa weeye waa xidid buu ka sameysay geed walba oo daawo ah daawadiisu waxay gashaa xidid ama caleen ama miro ama pooqa miraha ka horeeya ayay gashaa daawadiisu geedkan marka qustul hind la yiraahdo daawadiisu waxa weeyaan waa xidid wada aragtaan filaya xididkan marka qaabka loo isticmaalo ayaan rabaa marka hore inaan idin soo gudbiyo oo saxsan kadibna waxaan idin ku xijin doonaa qaabka hadii aad u isticmaasho aad kala kulmi karto qatar caafimaad aad kala kulmi karto waxaad ogsoon tihiin inay meel walba yaalaan dukaan walbo lagu gado haddana dadku ay iska isticmaalaan qofo sidoo rabo uu isticmaalo the best way oo loo isticmaali karo geedkaas waxa weeye in aad ku karkariso biyo laba qaado ama hal qaado sida markaasi uu ku qoro qofka ku siinaya daawadaas inaad u isticmaasho biyo kulul aad u isticmaasho ku karkariso sidoo kale inaad u isticmaasho caano aad ku karkariso caano kadibna aad isticmaasho waxaa kaloo loo isticmaalaa
in la isku shido oo guriga lagu shido yacni shiirkiisaas wax badan ayuu daawo u yahay. waxaa kale oo lagu daaweeyaa cudurrada korka ku dhaco jirka. saliid ayaa lagu daraa, lagu karkariyaa, kadibna jirka oo dhan baa la mariyaa. madaxa especially aad buu ugu fiican yahay. timaha jabka iyo dhibaatada timaha soo gaarta aad buu ugu fiican yahay. saliid baana lagu daraa. intaas waa qaabka ugu saxsan ee loo isticmaalo. haddaba maxaa jira marka qaabab kale waxaa jira loo isticmaalo dhibaatana u keeno qofka bini aadamka. waxaa ka mid ah in lagu daro geedkan xididka ka samaysan malab in lagu daro. waxaa ka mid ah in qaab kaabsool ahaan loo sameeyo oo isla markaasna qofkii calooshiisa ay gasho. markii malabka lagu daro geedkan waxaa markii la shiido wuxuu noqonayaa waxyaalo badan baa ku haraya oo daqiiq ma wada noqonayo. xitaa daqiiq hadduu noqdo waxyaabo badan oo waxa weeyaan ayaa haraya oo qofkii qaabka u isticmaali lahaa haddii uu biyaha ku daro ama caanaha ku daro wixii o dhan ay maaragtay intay isku milmaan kadib waxbaa salka ku haraya. geedkan markii biyaha lagu karkariyo ama caanaha lagu karkariyo oo la dhigo salka ayaa waxaa soo aada waxyaalihii qashinka ahaay oo dhan ayaa salka soo. daawadiina waxay ku dhex milmaysaa biyihii ama caanihii bay ku dhex milmaysaa. salka hoose waxaa fariisanaya waxyaabo badan oo qaybihii geedka ka mid ah aan loo baahnayn ayaa fariisanaya. sidaas oo kale markii malabka lagu daro wixii ayaga ahaa ma harayaan oo ku wada milmayaan. malabkii bay ku wada dhex milmayaan. markay ku wada dhex milmaanna qofkii si jumlo ah ayuu u cunayaa. marka calooshiiba si jumlo ah u gelayaan. garanaysaa? sidoo kale haddii kaabsool ahaan inta laga dhiga aad iska isticmaashidood biyo ku laqdid ayaduna sidoo kale calooshiibuu tagayaa. dheefshiidka qofka bini aadamka ah dheecaanada wax shiida ma ay shiidi karaan, kamana qayb qaadan karaan in ay maaragtay filtarayaan oo waxa weeyaan jirka ay u gudbiyaan. waxaa dhacda marka caafimaad darri xagga keliyaha oo kale especially dadka sokorta iyo cudurradan kala qabo aad buu ugu daran yahay. geedkan markii loo isticmaalo malab ama sidan qaldan loo isticmaalo keliyaha ayuu fariisiyaa. dad badan oo iska isticmaalo geedkan oo la yidhi daawo sokorta u yahay oo isticmaalo keliyihii fariistay si dhaqsaa ayaa jira. marka geedkan maadaamuu sidaa uu yahay faa'iidana uu leeyahay khatarna ay ka imaan karto waa in lagu cuno lagana qaato loo cuno si calaa cilmina loo cuno oo san dhibaato kuu geysanin. sidaa awgeed marka geedkan marka waxyaalaha uu daaweeyo waxaa ka mid ah cudurradan masiga loo yaqaano dhan, duuduub, sixir, jin, dhammaan noocyadaasi waxaa lagu daaweeya. cudurrada sokorta u fiican yahay, wuxuu u fiican yahay hilibkaa lagu dhimaa oo waxa weeyaan jirka ayaa lagu miisaanka ayaa laysaga jaraa. wuxuu u fiican yahay dhammaan xanuunada jointiyada, maqaarka ayuu u fiican yahay. wax lasoo koobi kara maahan daawadiisu. waa haddii aad u isticmaasho sidii loogu talagalay. aad baad u mahadsantihiin. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. شفاء لروحي وحبل المتين. bulshooy bishaaro warheedhe waa maxay bishaaradu? soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo. ilaan xaaji xasadkaygi baad ahayd, maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo? waa adiga boqolka qof igu dhex daraye. haddaba ina keen aan booqanne Dr. Axmed Cilaaj. laga raysay wixii hore. Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn. sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyni. Al-Hilaal Herbal Online waxaa kale oo laga daweyn macaanka, dhiigkarka, rheumatismka, maqaarka, kiliya xanuunka, massage, toobin waafaqsan sunnada, allergiga,